maanta meesha waxaan isugu nimid oo arrinka aan isugu nimid uu yahay in aan wax bilowno qof waliba oo gudoomiyaha sida Sheekh Axmed u sheegay mas'uul baa saaran uu ogsoon yahay yani qofka magaalada jooga Dortmund ama Krefeld meel dadaba noqon qof guriga jooga qof gudoomiyaha way kaliya gudoomiyaal waxa tiin mas'uul ah mas'uuliyadaasna waxay tahay mid idin saaran maanta waxaan rabnaa inaan wada sheekaysano gudoomiyaasha dhibaatooyinka jira iyo waxyaabaha la qaban karo marka aqoon isweydaarsi dheer baan furi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waqti badanna waa haynaa marka waxaan ku soo dhaweynayaa Sheekh Axmed mar kale iyo barasho wanaagsan iyo 2 daqiiqadood qof waliba yani isagoo ka sheekeynaya insha Allah أنا مركز هذا غير قادرين مدام مرة هذا هذلي أنا وحنا أحمد عبد الله القاسم على لها وحنا جينا مجال بوليس بروك مجال داس وحنا كسم إن الجاليات داس وحيكون باللعبة السنة كي هربشي جولاي بان قد بالدقني مالنتي قرن كسوماليا كودي جولاي بان حفلة وين قبلني كدبنا إن عن أورور سمينا كنت لقى لي وان سمينا بشي ديسمبر سنة كي هرون صباح يقون سجي أو دميسترن مركز أورور كنا وحالي رهان سومالي شفر أين النيدر زكسن marka ururkaasaan hadda magaciisa ku socdaa jaaliyadan iyo daladan iyo hawlaheedana marorana waxbaan kaga soo jiray haddana maanta inaan si cusub oo xoog u bilowna ilaahay ka rajaynayaa aad baad u mahadsantihiin jazaakum allahu khayran waxaan ka socdaa jaaliyadda Soomaaliya Integration Mittelhessen e.V. gudoomiyaheena maanta oo ka soo qaybgeli waayay aniga mataqaanaa Alisabeth Khayta inta aan u imaaday waxaan ahay gudoomiyaha mataqaanaa hay'adda SSEO Somali Students Equal Opportunity kuwaasoo mataqaanaa hawl aad u adag Soomaaliya ka qabanayo dhalinyaro ururkan waxa waa dhalinyaro Soomaaliya oo kuwa jaamacadaha iyo dad jaamacadaha dhigta dhaqaatiir iyo wax walba isugu jira iyo injineero iyo anigoo ah gudoomiyaha mataqaanaa SSEO in wadankan wax ka bartay injineer oo mataqaanaa takhasuska elboorada iyo stadiumka guryaha isbitaalada wax الرحمن الرحيم magacay waa Samiir Xasan Xuseen waxaan ahay gudoomiyaha jaaliyadda Marburg Bidenkopf karaaskaasaan ka socdaa jaaliyaddeena waxay shaqeynaysay 3 sano ugu dambeysay hadda sanadka afraad hadda gabagabana maray waxaan rajeynaynaa ilaahay idinkii isbedel cusub inuu imaan doono بسم الله الرحمن الرحيم magacay waa Ibrahim Isxaaq waxaan ka socdaa jaaliyadda maaragtay magaalada Kassel waxa uu markii la maqlo waa magac weyn maadaama aan maaragtay 2001 la aasaasay Farankeena كل إلا إمارة دورة تونسون فرنكين لسنية كل حيوان قانون حكمت كاسر حنوية على مساجد وين أو عن معرض عيالكم كلا دكسي قرآن كبرنا تدكس كجور هايان أو إيش محوها كبوين كينا إمارة هدي لاب هذا كلا إيش محوها مؤتمر ذوك إلا قبته كلا أنا معرض قيب كنا هاي حيوان كلا وحنكم الناس ذوك الانتجريشن كلا معرض حكمكم يا لذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وفاطمة محمود علي وحان كتيرا جديدة جالية دورتموند وحان هاي قدومية كحجينكا وحان قابل سنة أنت بدن أريمها دلنيرتا إيو دومركا أو جالية دياد وحي كا ترشو ميسا أمبا أي ربطا إني دلنيرتا وقبطو طبعا وحان هاي قف دور سنة كهر إمت أو دلنيرا أها مركانا أو rabay inay wax barato hore u socoto marka waxaan arkay inay adag tahay inay kili socda tahay assalaamu calaykum magacayga waa Faadimo waxaan deganahay magaalada Berlin waxaan ka socdaa hay'ad la dhahaa United Action Women e.V. waxaan qabanaa badi hawsha ku saabsan dhinaca haweenka iyo dhalinyarada yariska ah siba gabdhaha yariska ah run ahaantii waxaan rabaa marka hore inaan ugu mahadceliyo halkan adeer cali iyo qof walbo Soomaaliyeed oo ka garab geystay midnimadan ama isku keenistan Soomaalida active-ka ah ee ku nool dalkan Jarman mar walba hamigeyga iyo jacaylkayga wuxuu ahaa Soomaali midaysan oo isku timaada waan badanahay inta active-ka ah waan badanahay inta hay'adda Jarmanka ku nool laakiin waxaa naga maqan midnimadii garashadii isfahankii garab istaagiya naga maqan kulay aan waxaan dhihi lahaa Soomaalida aad bay u dhibaataysan tahay ku nool dalkan Jarman siyaasad xagga iska dhigna aan ku midowna Soomaalinimada annada dhiiga annaga waa hal kalarka annaga waa hal dhaqanka annaga waa hal diintana badi wax hal baan kana marka waxaan rajaynayaa inaanan noqonin dad isku yimaaday oo soo safray oo intaas oo dhibaato soo maray hadhowna su'aalo ka keenay maxay ahayd waxaan noola yeeray maxay tahay waxaan la sameeyay
qof walbood aragtid oo horumar gaaray ama dal walbo horumar gaaray ama hay'ad ha noqoto ama political siyaasad party ha noqdo wax walba ay tahay qof unba soo asaasay ra'yiga haddaan annaga garan weynay qof baa gartay oo isku kaana keena marka waxaan aaminsanaynaa horta taa mahadcelin culus ka siina adeer cali iyo tiimkaaga iyo qof walbo Soomaaliya ku garab qabtay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقعد وحال لها صفية كينان وحان كمد أهاي دادكا وقولولي دلنيارada gabdhaha ألس لكن وحال الفرعان كيك وحال لها صفية سبورتيغا وحال فرعان كيك لها صفية باوا وحو كجرا يونيون أوروبيان أيو كمد يهاي marka hadduu ilaa yiraahdo sanadkaaneed waxaan filayaa dadkiina sharciyada wada haysto baalka soo dhow inaad tagtaan aadan ka seexanaha baalka u codeysaan xisbiyada ku jirtaan si aan u helno power waayo sanadkaaneed waa sanadkii ugu awooda badnaa ee ay soo galaan Afrikaan ee u doodaan xuquuqdooda magacaygu waa Mukhtaar Xuseen Axmed waxaan ahay qabaqaabiyaha in la sameeyo jaaliyad Soomaaliyeed oo ka dhisan Fabartal iyo waxigeeda laakiin waxaan ahay macallin Soomaaliyeed oo dhiga af Soomaaliga waxaan u dhigaa ciyaal gaariyay ilaa 40 Soomaaliyeed waxaana hadda ku tidla jirnaa in la sameeyo jaaliyad sanadka socda ilaa yiraahdo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وحال هذا محمود فهر حقاري waxaan gudoomiye ka ahay jaaliyad la yiraahdo Somalis Kultur Deutsche Somalis Kultur und Sport Verein oo fadhigeedu yahay Munster jaaliyadan waxaan aaskeeda bilownay oo aan ku fikirnay 2007 baan isku nimid rag dhalinyarada yiri waa sidaan ma dad baabaasan oo lunsanaan iska keenno waa isku raacnay waan fakarnay waa isku nimid waxaan waaynay aan isku nimaadno waa aragnay ma fuli karnaa oo jaaliyad ma samaysan karnaa aan sameynay jitaabo hal sano jitaabo aan sameynay waxaan isku qornay ilaa 47 qof aan isku qornay sanadkii waxaan noo soo hartay aduu 20 sano meelaha noo soo hartay bar baan ku darnay sanadkii baan dana ku darnay oo aan 20 sano in sii go'day in kale ma isugo in 2009kii bay gaartay dhamaadkeedii ayaan waxaan markaas maxkamadda codsi warsanay 2010kiina waa noo soo ogolaaday jaaliyadu fadhiid naga noqon alxamdulillaah rabbil caalamiin waxyaabo badan baan qabanay marka waa ku mahadsantiin inta timid iyo inta imaan doonta iyo ninka qabtay iyo dhamaantii waa mahadsantiin gudoomiyaha hadlay hadalka lama dhimana magacayga waa Cabdullaahi Calito waxaan u mahadcelinayaa dhammaan horta intii qaabisay oo kasoo hawshan soo qabatay iyo dhammaan intii kasoo qayb gashay iyadoo adeecday inta kalena waxaan filayaa inay kasoo qayb gali doonaan intaan waa bilow wareegga labaad ama wareegga ku xiga inaan laga harin ayagana wax walbana qof baa bilaaba mudnaanta kulli cali baa hadda iskala malaynayaa iyo tiimkiisa iyo reer Dortmund magaalooyinka kalena saas oo kale aan filayaa gudoomiyaashii gudoomiyaha hadda jooga oo inay ku dayan doonaan ayaguna mar saas oo kale martiqaad sameyn doonaan wax walbana waa bilow wadanku hadda si fiican ba dadku u bartay oo si fiican ba dhalinyaradu hadda hididiilo u haysaa berigii hore laguma badnayn dhalinyarada hadda hoosbildinada iyo dhamaystay ama jaamacadaha wax baratay sida gabadhaas iyo dad kale iyo oo hididiilada u haya in maaragtay la tabantaabiyo oo awood loo muujiyo garab loo muujiyo waa muhiim wadankii dad badan baa ilaa 7 sano kale waalidku waxba la bartay meel wax laga bilaabo iyo meel loo aado waa la yaqaanaa jihayntii meeshii si loo ataagarayn lahaa wadankaas si loogu noolaan lahaa ama wax looga qabsan lahaa in laga shaqeeyo ayaa hadda hadda saan filayo iyo sidii dhibka dadka haysta uga bixi lahaayeen boqolkiiba 80 dadku waa dhiban yihiin 20 kaliya wax barato ismeel marin ka dhah 20kaas sida ay dadkan 80ka ay meel ugu sameyn lahaayeen kooda xun kii khamri aada kii nolosha ka dhac loo soo celin lahaa jaaliyadu waa furmayaan masaajidda waa la sameynaya dhaqaaluhu dadku waa ogol yahay waxaa loo baahan yahay qof walba meesha uu joogo inuu si fiican uga taliyo magacayga waxaa la dhahaa aadan salaad xaaji baa la dhahaa waxaan ka socdaa jaaliyadda Bielefeldi runtii muddo ilaa 5 sano ama ka badan adigu ilaa waxaan dhihi karaa 10 sano ku dhawaad
waan xiriir baan lahayn runtii iska warhayn jaaliyad baan leenahay runtii inkastoo mid ay naga burburtay laakiin haddana dib baan u sameynay alxamdulilah xagga jaaliyadda markaan soo dhaafo la aqoonsaday kolay isku xirnaantanada magaaladaas iyo agagaarkeeda runtii aada bay u fiican tahay waan iska waraynaa faamiladanada iyo ragganaga iyo ii sheeg dhalinyarada si gaar ah oo waddanka ku badan si aad ogtihiinba meel kasta waan iska warhaynaa wax dhibaataysan aada bay u yaryihiin runtii oo sida soomaalida qaar ama dhalinyarada qaar ku dhacday waan ka ladana anaku alxamdulilah ilaahay baan uga mahadnaqaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhammaan guddida meesha iskugu timaad salaamaya. magacaygu waa maxamed qalinle oo matalaya jaaliyadda mushin gladbach. kulleyn hadda guddoomiyihii isagoo hawl u gaara yeeshay ayuu ii wakiishay maanta inaan halkan u matalo anoo guddoomiye ku-xigeenkiisa. kulleyn jaaliyaddeedu muddo dheer ma jirto oo mataqaanaayay waxaan bilownay horta 2018 way soo jiitamaysay adu sanadkan dhexdiisa ayay nala ogolaaday inaan aqoonsi aan helno. alxamdulilah ilaahay fadligii intaa muddadaas yaree kooban kulleyn wax badan oo noo qabsoomana way jiraan, wax inoo dhimanna way jiraan oo noo qorshaysan. kulleyn sida guddida kaleba ay ka soo dhawaajiyeen meel maanta hoo u baahan hadal waxba kama taro. adduunkana laba qofun baa jirto waa waxaa jira un mataqaanaayay waa tala keeniya tala raac. kulleyn haddii mataqaanaayay qof la helo un mataqaanaa go-aankii keena dadkii kalena waa inay ku dhaqaaqaan un ay fuliyaan. marka wax kalaan kulleyn dee wixii hore aan sheegi lahaa waa la soo sheegay. insha allah waxaan rajeynaya kulankaas inuu si khayr qabo noogu dhici doono. guddida soo qaban qaabisan waan uga mahad celinaynaa insha allahu tacaala. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. halkaasaa kaga baxaya insha allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وموليد عبد عمر waxaan ka mid ahay guddida Soomaali Shaqo Shafti Garashafti Bentine Norton. kulli dabcan guddoomiyihiina oo nala socda iyo ku-xigeenkiiba iyagaana wixii matalaadiina waxaan ahay anigu xogayaha jaaliyadda Soomaali Shaqo Shafti Garashafti nida section way kulli wixii warbixina waxay idin doona guddoomiyaha oo aan hadal ku ixtiraamayaa. waxaan u mahad celinayaa guddida qaban qaabisay Cali iyo xeerta la shaqeynayso dhan aad bay u mahadsan yihiin. kulli waynu u baahanahaynaa inaynu kulano noocan qabsano iyo dalad noocan oo kala wixii hadalay kale waxaan u dhaafi doonaa kulli guddoomiyaha. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa cabdimaalig maxamuud maxamed. siduu ninka mawlid sheegay waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka jaaliyadda ka dhisan nida section bad bentham. guddoomiyuhuna waa la socdaa saddexdeena maanta halkan soo wada gaarnay. ugu horreyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo jaaliyadda Dortmund ka dhisan guddoomiyaasheeda iyo madaxdeeda iyo dadka halkan nagu casuumay dhammaan asxaabta ka soo qayb gashay sharafta badan. waana aad baan ula dhacsanahay inaan ka soo qayb galno kun sidaan oo kale taa oo Soomaali jaaliyadeeda ee Jarmalka ka dhisan looga hadlay ayahooda iyo sida ay wadajir wax ugu qabsan lahaayeen. aad baan ugu mahad celinaynaa dadkii soo qaban qaabiyay dadkii fikirkaas ka lahayd. haddana waxaan rabaa inaan ku wareejiyo guddoomiyaha la socdo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي عبد الرحمن عبد الله عيلتري. waxaa ka socdaa jaaliyadda Soomaali Shaqo Shafti Garashafti Bentine Iibaw oon ahay guddoomiyahooda. haddii ilaahay idinkii leey aad iyo ma hadda koobaad waxa iska leh ilaahay oo inagu kulansiiyey maxaa la madal sidan u qurux badan inagoo caafimaad qabna. ma hadda labaad guddoomiye Cali Baale oo madal sidan u qurux badan noo sameeyay dhammaanteen iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha guddoomiyaasha sharafta leh. aad baan idin salaamayaa waana mahadsantiin insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو محمود حسن علي وعن كسعدا دقمة فلدا قبل كهيسن وعن هاي قدومي كحجين كمسجد كي يدكس القرآن كمجالد فلدا
meeshaan waxaan kusoo gaarnay aniga iyo ninkan walaalkay ah qasnajiga guud oo degma muxuu ahaa sheega masjidka jaaliyadda muddo badan ay furan tahay muddo 2 sano ah بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa cabdikariim bashiir soo idiin sheegay walaalkay maxamuud waxaan ka soconaa jaaliyadda Somali Community Lancres Fulda jaaliyaddan waxay dhistaa muddo 2 sano magacaygu waxaa la maxamuud axmed waxaan ka socdaa jaaliyadda Fiisbaden iyo Mines jaaliyaddaas waxaa la aasaasay 2010kii كل جالية بدن سنقانة مش هوا فديان ونوضع شقين نحمرتي أما نساعد نستعجرني جالية ده سحقبت كذي كل يهدا مش هن وحن كوكو بكرم عند قضاء يرون هيسنو لكن جالية ده أساس كذي وحل سمي الله وكون يتوانك وحنا لو سمي باهي مركز جرتي مقالة أنت جنة كجرتي يدجانا دوب ضد ولا لها مسلمين أو صومالية أي أوقعي هبين إيمان أوقعي ونسعودي كنا ددالين سيلو سمي لها بيس جاليد يكون شقيسو بيس كاسو بيس إسلامية المساجد لوفرو وانا ددالين مساجد جدا يفرين مقالة فيس بعد كفرين مساجد كاسو كم ذوين لو مقالو متانا عاصمة ماينس يفيس بعدن ومد الدقنيت مركز تمد ودك نكو عصبا ددال وين يموجيين بايرو لنا واركين ومدين مركز صوب بيس إن الهذان وقرح بدن تهاي marka waxaa la sameeyay in masaajid loo furo Mines iyo Fiisbaden oo masaajidkan Fiisbaden laga furo aad iyo aad ayaan idin salaamayaa magacaygu waa Faarax Jaamac Abdi waxaan ka socdaa jaaliyadda Soomaaliyeed Somali Sheikh Kultuwa Farayn magaalada oo ka dhisan magaalada Offenbach magaalada Offenbach waa magaalo yar oo ku dhow magaalada Frankfurt jaaliyaddaasi waxay ka turjumaysaa magaalada Frankfurt iyo Kreis Offenbach إلى سودان أيام مارك النهوسي مادة وجاليد كلو مارك تي حوجني هالك مارك كم يشرتو جاليد وجاليد وين وحلا أساسي لابد كون يو صدقية طبنكي يلا أساسي رنتي وحقبل أعرف فربضن بي مارك جاليد وقبتي أنا قدوميه أفراد بانا هاي صدق قدوميه هو رأي يجوه رأيي مساجد وين بانور ديسان فلله الحمد. السعودية دان سكين بروح بقى هو أحمد نور إبراهيم جريدة الصومالية هامبورغ جريدة واحد ديوان جريني أما أقوسي عن هالني سنة كهراء لكن هو ديوان جريني هوش البروسيس كسنة كي لابد كسيدي توان كابلاوني لكن دي كستونا هاي ستا لو كما بيحكي رب خلق قمناتا إن نرانو أنك وحنا جريدة ما عرفتي مونيستا إن نران جريدة وحنا هامبورغ جريدة وحنا هاي كاسل جريدة لو كما بحاي واي جالية داسي waxay mas'uul ka tahay kaliya Hamburg ama salaam monista anigu Hamburg joog wax mii qaban kartaa waa maya yaa waxay qaban kartaa dawlad baa waxay qaban kartaa dawlad oo jaalidaha dhan ay ku midaysan yihiin oo awood jaalidaha ku hadasho oo ah meel dhexe oo Soomaalida laga maamulo oo maaragta xogta loogu soo gudbiyo Soomaalida iyo noloshooda qurbaha yani gaar ahaan wadanka Jarmalka laga hago kaliya meesha noqon karto waa dawladdaasi marka waxay naga difaaci kartaa dhibaatooyin badan maanta haysta يعني سيارة فضد إن لوجو سو جودايو سيارة فضد ما عرفت حفصيدة إن لوج هنايو سيارة فضد حقوقها إن لوج دوتشينايو سيارة فضد ما عرفت إن عن دبعت أنت عليه عن كم مدرين أنا جوا دجال كوسو كوري كل شيء كانوا هكذا جوجو بقول كي بصدق أي كيريهين ما عرفت دهان هنتي وحنوبا هنا هاي دد أقوي هنا أي ما عرفت قعنت هيان أما أي تردادين هيان أو ما عرفت حقوق لأن لوجو دونتا إن جرمال جارهان دولة سيدا تصارحان قرها حكومة قرها برلمانك إيو سيدا كالبزيك سامتي عيد كاستو إيو معركتي مامور قبل ديلا سيدا لحتوان قبل marka walaalayaal isku duubni baan intaas oo dhan aan soo sheegay kuwa kala badan oo qarsoon oo dhibaatooyin jira aan kaga gudbi karnaa waxaan isugu iman nimid maanta ujeedka ugu weyn waxa weeye in aan samaysano waxa la yiraahdo dalad Soomaalida oo dhan ay leedahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin meelaha fogfogaad ka timaadeen waana ballan adinkoo gacmo mara dhinaan noqonayn doortan dadka noqonayn waxaan isbaraynaa sida xuquuqdaada loo soo dhacsado sida gabadha Faadima hadaa ay sheegaysay
waxaan nahay yani haddaan marka la kusoo celina mar walba waan idhahdaa aniga annaga oo joogna waddanka adduunka ugu dhaqaalaha badan inaan qaabkan ku noolaano in gabdhaheenii xabsiyada ay ku jiraan wiilasheenii ay isdilaan ma garanaysaa oo innaba ha yaraatee qofka soomaaliga uu yahay looma ooyaan waxyaabahaas oo dhan waxaa lagaa rabaa tanaasul badan inaad samayso sabar badan aad muujiso watan ugu horeyso kan ugu xun dadka iyo kan ugu fiican inaad isku hayso midka dhibaatada wado ama fowdada wado ama qaladaadka samaynayo ha ka dhex saarin jaaliyadda ku dhaxaay because hadduu banaanka u baxo waa xuruub wuxuuna u samayn karaa laakiin haddaad ummadda ku dhaxayso wax ma samayn karo idinkoo dhan waad wada saaranta mas-uuliyaddaas ku dadaala hana ka istaagina cabi maa lagu taagnaaw soomaali baahi badanaa haysa waddankan ku nool dhanka sharciga xaquuqda waxyaaba badan aad ka hadasheen maanta experience badan aan kala faa'iidnay dhalinyaro xabsiyada lagu dilay aan xaquuqdooda weli la heenin sababtay u dhinteenna loo sheegin waxaasoo dhan inaad dabagashaan waxaa laydin dhiibay howl culus waxaa laydinku aaminay mas-uuliyad culus waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay idin fududeeyo annagoo og xaaladda soomaalida jarmalka ku nool sida ay tahay maanta annagoo og duruufaha iyo wax walba inaad dhulka kasoo bilaabi doontaan waxaan rajaynaynaa maanta waa taariikh 8 bisha 8aad 2020 waxaan rajaynaynaa 4 sano kadib doorashada dambe marka la isku imaanayo inaan weji kan ka duwan aan isugu imaano annagoo maaragtay qowmiyadeena soomaaliyeed maaragtay heshay xuquuqii ka maqnaa heshay dad u dhaqaaqo difaaca heshay maaragtay garab iyo dad isku xiran iyo maaragtay horumar badan oo la sameeyey aan rajaynaynaa ilaahay idinka hadduu ilaahay naftana u gaarsiiyo sharaf ay ii tahay maanta doorashada halkan ka dhacday inaan ahaa guddoomiye guddiga doorashada halkan ka qabsoontay waxaan rajaynaynaa magaalada kaasel oo loo doortay inay noqoto xarunta dalada ama halka laga maamulayo in reer kaasel iyaguna ay maaragtay guddiga la shaqayn doonaan maadaama soomaalida ugu badan ee degan jarmalka kaasel gaar ahaan gobolka hessen ay degan yihiin marka ilaahay idinkii mar walba waxaan idinkula dardaarmaynaa in mas-uuliyadaha idin saaran ay iska rogtaan oo ay idin dhayaalsan tihiin kuwii la doortay oo maanta intii jaaliyado isku timid konton qof aa isku timid aada noqoteen xulkii xul oo dimuqraadi ah soo maha intiina midaan ka aqaan waxaa ka jira odagaas iyo odagan iyo gabadhan waxaan ka doortay meelo badanaa waxaan ka hormarsaday ninkaan aan ka hormarsaday ninkan baan ka hormarsaday codka waxaan siiyey ninkaan odaga oo yarkan injineerka la yiri waayo aan u sameeyey waayo very active yani waxay sameeyeen wax aan caadi ahayn waxaan ka rajaynayaa marka waaba na tuseen farxad iyo horumar waana tusteen inayna ku ekaan intaas oo aad sii wadiin oo duruus ay noqoto oo lala sheekay kol baan jaaladiida waa shirinaya waan ka sheekayna waan ii duuban yahay bilxaqiiqa inaan idin sheegay waan isku yeerayaa waa mathal baa tihiin waxaasoo dhan marka intaas la yidhaahdo wax laga sheekeyn kara maahan hadalkayga waxaan kusoo gunaadayaa 100% 1,000 waxaa mahadsan master cali ayay ku yimaadeen dadaalka meesha adinku ha sahlanina waxaan wax culus waayo mas-uuliyad aad ga baqaadeen maahan qofka keliya in lagu dadaalo oo lagu dagaalamo waddan lagu daafaco ma ahan qoriga afkaa ka daran soo maaha maanta waxaan la joognaa dad aad og tihiin adinkoo cagacad baad timaadeen ordaysiin jaamacadaana maraysiin soo maaha waa maxadin marka la yidhaha xabisida markaa tihiin waa la buuxa waa ogna anu hadda saddex cunug baa 3 famil baa ilma laga qaateen anugu jaalidin oo kasoo guulisatay inaan soo reebo kasoo qaadno oo hadda mid ugu dambaysa famil mushkilad baa la keenay
markasta waa problem waa familka wax isqabsanaya marka dadkaanu mentally waa jiran yihiin ma garatay waxaa la ka rabaa marka aabba iyo hooyo inaan u wada noqono oo khaas ahaan hadda adinka layna doortay inaad tustiin wax cad inaad u noqon kartiin waalid oo baaqatiin oo ka warqabtiin aad baan u mahadsantihin